عن حقيقي دونا وأن كو أدكار دونا ولي بقلبية إنه كو أدكار دونا فعليا نكو أدكار دونا waxa walaalkeen uu ku shahiiday oo naftiisa ku waayay inaan xaqiijino ayaan ku adkaa doonaa hadii Ilaahay ogolaado runtii waxaan aad iyo aad qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed iyo ehelka iyo asxaabta aan uga tacsiyeenaya geerida xanuunka badneed ee ku timid walaalkay saaxiibkay runtii aan dhihi karo wuxuu aniga ii ahaa dabcan saaxiib gaar ah qaranka Soomaaliyeed ayuu dabcan wuxuu u ahaa xubin muhiim ah ehelka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayuu wuxuu u ahaa xubin muhiim ah anigana si gaar ah runtii wuxuu igu ahaa walaalkay saaxiibkay laakiin dabcan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inaga jecleystay waqtigiisina halka ku ekeeyay waxaan leeyahay guud ahaanteen waa isaga tacsiyeynayna samir iyo iimaan Allah naga siiyo asigana waxaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa shuhaadadiisa inuu Ilaahay ka aqbalo jannadii firdawsana Ilaahay uu ugu bishaareeyo runtii qofka bini aadmiga ma jirto wax ka wanaagsan in qofku qalbigiisa ka soo gooyo inuu dhiigiisa iyo naftiisa oo wax kasto qof bini aadmi haysto ugu qaalisan oo u hibeeyo ummadiisa iyo qarankiisa walaalkay asigoo u adeegaya qarankiisa asigoo u adeegaya bulshadiisa asigoo u adeegaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed inuu u sameeyo dhiig joojin ayuu wuxuu ku waayay naftiisa dhiigiisuna ku baxay Ilaahay waxaan uga baryayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu naxariistiisa janno siiyo wuxuu baaqi ku sii ahaa doonyaa idanka Ilaahay qalbiyadeena iyo qaranka Soomaaliya dabcan ayuu baaqi ku sii ahaa doonyaa qof kasta Soomaaliya oo muwaadin Soomaaliyeed oo dadnimo iyo Soomaalinimo ku jirto ayuu dabcan qalbigeeda baaqi ku sii ahaa doonyaa hadii Ilaahay ogolaado waxa kale oo anagana dabcan aan xaqiijin doonaa hadii Ilaahay ogolaado cid kasta argagixisadu dabcan ayagu qiyaano iyo dhagar lagama weynaayo laakiin waxa ka weyn ayagu waxa ay ku fikirayaan waxa ka weyn tii Rabbiga ka weyn uga mana tanaasuli doono haba yaraatee in dadka Soomaaliyeed laga dulqaado waxaan xaqiijin doonaa oo aan ku adkaa doonaa waliba qalbiyadeena ku adkaa doonaa ficiliyan uga adkaa doonaa waxa walaalkeen uu ku shahiiday oo naftiisa ku waayay inaan xaqiijino ayaan ku adkaa doonaa hadii Ilaahay ogolaado wax kasta isku dayayaan dhagar kasta isku dayayaan laakiin dadka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed cabsi gelimayso Ilaahay idankiis midna shaki kuma jiro mar haddaan dagaal ku jirno dad badan oo qalbiyadeena ku weyn oo qalbiyadeena xusiis ku yeela doona oo markaas runtii iyo mar dambaba aad iyo aad aan xanuunka hor u dareemi doon ayaa naga dhimanaay laakiin waxa ka weyn yoolka aan u socono oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan xurriyad iyo nabad marka kuwa duurka ku jira oo qalbiyada runtii ay wasaqaysan yihiin oo walaalkeen iyo kuwa badan oo kale oo qaali yahay fahmi waayay waxa ay ka shaqeynayeen iyo muhiimadda ay u lahaayeen qaranka Soomaaliyeed fahmi waayay dabcan uguma simi doon uguma sii dulqaadan doon in dadkeena dul saarnaadaan Ilaahay idinkiis weyna ka dulka cigi doonaan walaalkeena mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad adeeryaal dhammaanteen waa isaga tacsiyeynayna runtii ma u maleynaayo hooyadii iyo aabihii dhalay way dhaleen oo ka soo go'ay laakiin u maleeyma farxaan inay iga xanuun badnaayeen waxaan dareem xaqiiqatan marka aad iyo aad aan runtii aan uga xumahay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala Ilaahay naxariistiisa jannaha siiyaan leenahay waxaan xaqiijin doonaa wadada ku dhintay Ilaahay idinkiisa inay noqoto wada guuleysatan xaqiijin doonaa aad u mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh